وقصص كآذك الله يابك بضله إمرك لقى شيكين يا جناح سجيه هرمركيسة runtii la soo qaato ninkan dhalinyarta magaciisa waxa la yiraahdaa Camaar Cumar waxa uu ku dhashay Sacuudiga ku dhashay laakiinse asalkiisu waa Suudaani muddo ilaa 7 sano waxa uu ku noolaa isagoo yar Suudaan kadibna waxa la geeyay dalka Imaaraadka Carabta halkaas uu aabihii ka shaqayn jiray Camaar Cumar waxbarashada runtii markuu dhiganayay dugsiga hoose dhexe ilaa secondary schoolka wuxuu ahaa nin aan waxbarashada aad ugu fiicnayn runtii ma ahayn dadkan aadka ugu wanaagsan ee aadka ugu fiican xagga waxbarashada bal uu ka doonaa walaalihii halkay waxbarashada aadka ugu fiicnaayeen isagu sidaa ma ahayn wuxuu iska ahaa inta badan sida inta badan ay u badan yihiin dhalinyarta qof iska caadiya oo waxbarashada aad serious uga ahayn laakiinse markuu gaadhay heerkii jaamacada